salaamullaahi calaykum asxaabta qiimaha badan ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay KineMaster iyo casharadiisa. Waxaan idinku hayaa muuqaalkan qaabkaad u samayn kartid short video ama WhatsApp status muuqaalada loo yaqaano asigoo lyrics-kiisa wata. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. aynu soo furano KineMaster-ka, dooro qaabka jooga oo vertical-ka ah oo numberkiisu yahay 9.16. ku soo darso video ama sawir hadba kii aad rabtid. ku soo darso cod noocaad rabtid. haddii aadan cod caadi ah oo MP3 aadan haysanin asigoo video ah ayaad codka kala bixi kartaa. si aad ugu soo darsato codka, soo gasho videoga aad codka ka rabtid, extract audio ka sii tag si aad u kala saartid muuqaalka iyo codka. kadib muuqaalka iska delete garay. video lyrics markaad samaynaysid ku dadaal qoraalka aad qoraysid inuu ahaado mid muuqda oo soo jiidasho leh. marka si uu u muuqdo qoraalkeena waxaan ku soo darsanayaa black background. markaad ku soo darsatid black background opacity-ga u yaray ilaa heer muuqaalka laga arki karo qoraalkana ku soo baxaya. aniga hadda 80 ayaan geysanayaa opacity-gayga maadaama aan isticmaalayo sawir markii horeba black ahaa. saddexdan talaabo markaad samaysid ayaad waxaad bilaabaysaa qoraalkaaga. qoraalka markaad qoraysid 1, 2 ama ilaa 3 layer ayaad isticmaali kartaa hadba kaad rabtid. aniga hadda waxaan isticmaalayaa 2 layer maadaama aan rabo 2 qoraal oo is hoos yaala inaan samaysto. kan koowaad ayaan soo gashtay, pointigiisa iyo colorkiisa ayaan saxday, drag ayaan dhahayaa anigoo kaliya hal eray ku qoray. hal eray kaliya ayaad ku qoraysaa, kadib drag ayaad dhahaysaa. layer kale aan ugu talagalay inaan hoos dhigo ayaan ku soo darsanayaa, kadib asigana sidii hore camal waan saxayaa pointigiisa iyo colorkiisa. labada layer la sin videoga oo drag garay. marka intaas samaysid, markaas kadib ayaa u soo laabanaysaa inaad textiga iyo codka isla wadid. in yar ayaad codka ka dhagaysanaysaa, kadib boos ayaad dhahaysaa. codkii aad dhageysatay ayaad qoraysaa. kaliya intaas yar aad jartay ayaad text ka bedelaysaa. pointigiisa iyo colorkiisa wuu ku saxan yahay, hore ayaa soo saxday. waa wado fudud. intaa qoraal kasta aad qortid pointiga iyo colorka ka bedeli lahayd qaabkan aad u isticmaashida kuu fiican oo wadada fudud ah. markaa sidaa u dhamaysid haddana waxaad soo bilaabaysaa tallaabo kale oo hadalka iyo qoraalka inaad isla saxdid ah. si aad sidaa u samaysid, timeline-ka ama meesha ay layerska ku yaalaan zoom in dheh oo soo dhawey si aad second u jartid. markaad soo dhawaysid codkaad daaraysaa, bilowga ayaad ka bilaabaysaa, codka ayaad dhegaysanaysaa. codka iyo textiga marka inay isla socdaanaan raba oo codka meeshuu ka bilaabanayo aad text ka bilowdid, meeshuu ku dhammaanayo aad jartid markaa gaartid. markaa intaas samaysid, muuqaalkaaga intii ugu muhiimsanayd waad qabatay oo waxaa kuu dhiman keliya sharaxaadiisana hadba qofkay ku xiran tahay iyo siduu uga helo asiga iyo wuxuu uu rabo inuu samaysto. aniga ahaan hadda waxaan ku soo darsanayaa keliya effects yar oo loof ah maadaama heesta ay tahay hees jecel. effectyadan waxaad ka heli kartaa YouTube-ka haddaad raadsid video effects ku qore hadba marka kii ku anfacayaad soo degsan kartaa.
midda kale muuqaalka iyo qaabkiisa iyo wuxuu ka hadlayo inaad isku ekaysiisid ku dadaal waayo taas waxay ka qayb qaadanaysaa soo jiidashadiisa oo hadba muuqaalku siduu yahay marka inta dhamaysid export ayaad leedahay meesha xariijinta waa quality videoga marka waxaad ku soo saaran kartaa hadba inta rabtid normal dhexda geene normal hadaa rabtid hadii mobilkaaga storagekiisa space fiican u haystana ilaa dhamaadka oo high quality aad ku soo saaran kartaa ugu dambeyn muuqaalkan wuxuu ku soo baxay sida tan badan waligeeda dhamaanin biyaha ku tiran yaraanin jacayl dhaban baabayin ilaa barigan ciraysto xasuustaadan baynay intaan ifqa baaqisi ay booskaaga qof kale ma yeesho intaan ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta waxaan rajaynayaa inaad wax uun ka faa'iiday intaan muuqaal kale ku kulmi doono sidaa iyo ammaano Allah